Dhacdo urkutaal ah ayaa waxay ka dhacday deegaanka Laan Jamane ee gobolka Galgaduud kadib markii halkaasi lagu dilay dad u socday aroos. Dhacdadan ayaa si weyn ugu naxay dadka ku sugan deegaanka Laan Jamane iyagoo isla markaana ka carooday falkan foosha xun ay geysteen sida ay sheegeen maleeshiya hubeysan. Inta la xaqiijiyay weerarkan waxaa ku dhimatay 3 ruux halka 2 kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana dadka dhaawacmay la geeyay mid ka mid ah goobaha caafimaad ee ku yaala degmada Gurceel iyadoo isla markaana halkaa lagu dabiibayo. Gaariga nooca loo yaqaan Brabus ayayna wateen dadkan rasaasta lagu furay iyadoo isla markaana gaarigu uu ka muuqdo guud ahaanba rasaas aad u xooggan. Laamaha ammaanka ayaa waxa ay sheegeen inay ku raad joogaan dadka falkan geystay iyadoo isla markaana laamaha ammaanka ay u tageen ehelada dadkii dhacdadan ku dhacday waxayna u sheegeen in markaa ay soo qaban doonaan dadkii falkan geystay.